باي باي أرسنال باي باي مان سيتي iyo Arsenal way u dhamaatay tartanka horyaalka English Premier League saasay ugu hareen i aamin yeel ama diid anoo Arsenal fana kula hadlay anoo taageero Arsenal qeyraya in Arsenal ay ka hartay tartankan waxaana jira laba sabab oo aan ku tartarmi karin Manchester City iyo Arsenal waxay isku noqdeen sida kooxda labadan koox Chelsea iyo Manchester United hadday mid badiso tan kale way soo badinayaan hadday mid kufto tan kale way ku soo daba kufay hadda Arsenalna ma ahan koox jaanisadeeda qaadato Manchester City-na ma ahan koox tartan u socotaba ma ahan Arsenalna ma noqon koox tartankeeda ay ka faa'iideysto fursadeeda ka mira dhalis markaan ku leeyahay afar kulan oo Manchester City soo dhacday ama laga badiyay ama bareejo soo gashay Arsenal saas oo kale sameeyay waa laga badina ama bareejo Arsenal goorma ugu dambeysay inay gool dhilis xitaa gool caadi inay dhilis goorma ugu dambeysay kooxdan waxay u baahan tahay Manchester City way isoo dhistaan leeyahay nin kasta keenay ahad kasta soo iibsanay haddana hore ma u socoto dhibaatada heesta waa Pep Guardiola dhibaatada Manchester City heesta waa Pep Guardiola ninkii arkab wuxuu leeyahay ciyaar adaa ku fiican mida kulankaasi xiga beddelku keena gool u dhalina wuxuu leeyahay kii hore kulankii hore asaa gool dhalin ninka fiican ma laha asaasafa koox waxay u baahan tahay hal line up oo ay ku duusho ay ku dagaalanto koox walbana kula hortagta si ay guul u gaarto hadii intaas la waayo kooxdaas way u dhamaatay Pep Guardiola tactically way ka soo dhamaatay Klopp hadda koor saasuu noqday soo u fiicnaa Pep Guardiola Premier League wuu ku shaqeystay koob badan uu soo aruursaday uu soo raaxaystay waqtigiis lama joogo times over waqtigiis wuu dhamaaday maskaxdii daashay meel oo wax u wada email kale ma yaqaan taageerayaasha Manchester City Pep Guardiola waxa ka sugina kuwa Arsenal saasan leeyahay idinka Arteta waxa ka sugina hadda de Arteta madaxii macallin ma Arteta macallin ma asigina wax ma ka sugi kartiin Blues way soo badisay Abu Okealos halkuna la soo badiyay shalay sida loo jaakayna waxa la iska dhigaa dhin oo adduunka oo dhan soo gumaada kaas wax ku dhex jira balaan aamin ama aamin aday ku taala taageeri Chelsea hadda aamin kaas wax ma ku dhex jira waxa arkay kulankii Arsenal la ciyaarayna ba arkay kaas nin waxa soo wada aan ku dhigi kara ma ahan hadda way marka Premier League yaa iska leh horyaalkan kooxda ku guuleysanaysa waa tuma kooxda ku guuleysan doonta saas way diray waa ogaa meel foka ku raadin koobkan waa kii ilmaha mu'aarad mata Man City iyo Arsenal mu'aaradkeeda mata Aston Villa fanaanadeeda hadda soo iibs horyaalkan waa kii Aston Villa Arteta waa fiir yani wax badan ka akhristay madaxay wax ku dhex jira malaan waxna ma soo wada Pep Guardiola fiiri asigana saas oo kale wax uu soo wada ma xitaa girkii cadaad muruga nafta ka qaadi kooxda lacag ka suuq ka gelina saddex kulan isku xigta ma badin kara marka kan koox hadii la form fiican ay ku jirtaa tartan ay diyaar u tahay hadii lagu dhaha waa Aston Villa been isku sheegmeen Aston Villa ani sanadkan waa ka qoostay horyaalkan iyada iska leh bartaasa u tiiri waxay leeyihiin ya Man City tadaba dhibcood ogaana taageerayaasha Arsenal war eeder oo taageera Arsenal ana maqal ma jira Arsenal koox guuleysata ma ahan koox guuleysata ma ahan sabab darteed Arteta ma ahan macallin danta kooxda fiiriyay wuxuu mar walba diyaar u yahay inuu qanciyo xidiga kamid ah kooxda Arsenal macallin isku dayay ama isku day sameynay inuu xidiga qanciyo gool ma gaaray Arsenal saddex qof hadii laga buriyo saddex qof hadii Arsenal maanta ka tagan hadda maanta ay ka tagan UEFA Champions League way ku guuleysanay Premier League way ku guuleysanay FA Cup way ku guuleysanay xitaa Community Shield ma dhaafayso koob walba loo tartamay Arsenal qaadaysa laakiin waa goorma
saddex markay ka taqluusto. Kan koowaad waa Arteta madaxay, kan labaad waa Martin Odegaard, kan saddexaad waa Gabriel Jesus. saddexdan Arteta, Odegaard iyo Jesus hadday ka tagaan Arsenal, koob walba iyadaa u tartamaysa, iyadaana ku guuleysanaysa. waa hubaal la isku soo laaban maayo. markii ugu dambeysa kuu sheegaa Arteta madaxay midkan kabtanka ay ku sheegan oo wax uu ogyahayna lahayn maanta oo dhan saas oo isku meeraysana gadaal oo soo fiirina gadaal waxaa ku soo xir curyaankan oo Gabriel Jesus xitaa mistake saas oo dhacdhac maanta oo dhan wuxuu leeyahay kubada hadii asi baasay gool tahay ama uu laado gool tahay wuxuu rabay maanta oo dhan inuu gambiyo. xalay waxaa ku qoslay markii Arteta asigoo gool u baahan Arteta inuu macallin ahayn ku sheega Arteta gool u baahan yahay Victor Gyökeres ciyaartu waxa kameynayay uu fiicnaa maadaama gool dhalin xitaa big chance oo cunay laakiin bandhigiisa iyo tayadiisa mid sareysay muuxumo ciyaaryaanka waa la bedeli karaa hadii xitaa gool u baahatay ninkan gool ay ka weysay waa bedeli kartaa. Kai Havertz u fadhi Gabriel Jesus akeen haye dhaxdii Martin Odegaard wuxuu noqday galab uu noqday Martin Odegaard waa bedela oo Martin Odegaard uu bedeli Iza u fadhi Iza keed fadhi waxa la soo keenay Mikel Merino attacking midfielder la Arsenal aqligaas intuu ka shaqeynaa warnin Iza heesta ma tayada Iza nin laha Arsenal joog nin tayada Iza ka sugays ma Arsenal joog wallahi inuusan weerar ilaa idhax Iza oo kale inuusan Arsenal joogin laakiin Arteta madaxii wuxuu ku adkaystay Iza 8 kulan oo sii maray oo keed fadhi kan xalaab u dambeysay oo 10 daqiiqo hata yaar 10 daqiiqo amal may 10 daqiiqo yaar toddoba kulan la soo dhaafay daqiiqada ka mid ah ma siin Arteta wuxuu rabaa inuu meel gaaro. Kai Havertz u fadhiya gool u raadinaya Jesus la soo gelinaa aad u fiirsada Arsenal Jesus markay wax ka weysay oo Jesus ay ka qooshatay inuusan waxba soo wadin aragtay suuqay gaashay waxay keentay Kai Havertz waa iska normal waxa uu dagaalamay goolul aad ilaa 15 uu dhalinay ever ma ahan waa la iska haysan karay. Arteta wuxuu dhahay nin oo 15 gool ma rabay ani 25 ilaa 30 nin dhalinaya raba Victor Gyökeres oo keenay hadda heer waxay maraysaa Gyökeres iyo ninka la yiraahdo Kai Havertz in la talaabsado oo dib loo laabto meeshii laga soo bilaabo Gabriel Jesus gool laga raadinayo la Jesus markaa wax ka weysay Havertz keentay Havertz markaa wax ka weysay Gyökeres keentay Gyökeres hadaa bedeshay ninka asi bedeli keen no keen Kai Havertz waxa uu dhaadhacay miya booski koowaad meeshii laga soo carar Jesus oo cararay waxa rabtaa gool inuu ku dhalay aku sugin taageerayaasha Arsenal iyo City mucaaradka ku ah gambirkiina soo qaata Aston Villa dareeskeeda soo xirta Aston Villa sanadkan championska iyadoo labadan koox wax u haaya malaha maanin Iza keed fadhiisinay oo nuno baalkan ciyaarsinay maxaa la Martin Odegaard oo maanta oo dhan saas isku meereysana kubad counter attack la siina uu orda markuu orda kadib uu istaaga daafac ama gool hayo oo soo fura ka waran Ilaahay kugu dhaash tan kala kooxdan tababarkeeda caawa gool ay raadinay maanta oo dhan daafacyada Bruni meesha isku baastamay waxa ka qaaday oo dhaqaajinay ma lahan haaw mark sidee meel ku gaarnaa daafacyadii maanta oo dhan iska baastamay waxay u maleysaa kooxda inay 3 ilaa 4 gool iyada leedahay daafacyada baastamay gool hayaa loo celina Arsenal waxay u baahan tahay tababare istaraatiijiyaasha tababare weeraryaanadeeda sida gool lay dhiri wayba ka guurtay ma yaqaanaan waxa ku fiican gool dhalin hadii la dhaca Zubimendi iyo Rice ka fiican weeraryaanada Arsenal tababare weeraryahan inay keento way Arsenal weeraryahanada tababare inay u keento oo sida gool loo dhiri macallin yaqaan oo xidigaha weerarka Arsenal ugu ciyaara ka dhisa xalay jaanisada ma cunni Ilaahay kugu dhaarshay fiiri Gyökeres mid kan cunay Jesus mid kan cunay Bukayo Saka kan cunay Martinelli kan cunay afartan jaanis koox cunays ma gool dhalinays ma laga sugay marka Arsenal waxay u baahan tahay macallin oo gool dhaliyaha aan cabsanayn oo kooxda weerar ku dhiirigelinaya u baahan tahay kubadahan gadaal lagu haynay Arsenal intay wad meel ma gaaris aad baa u maasantiin saaxiibadeyda muuqaalkan meel fog gaarsiiyay Arsenal fans hadaa tahayna fikirkaadana la wadaag